madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa gebi ahaanba qaadacay guddiga doorashooyinka ku meel gaadhka ah ee uu magacaabay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maalintii shalay ahayd. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland oo lagu socodsiiyay golaha wakiilada Puntland isla markaana la ogeysiiyay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda sare iyo garyaqaanka guud ee Puntland ayaa madaxweyne ku-xigeenku ku qaadacay magacaabista guddiga doorashooyinka Puntland sida qoraalka lagu sheegay. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku waxa uu waxba kama jiraan ka soo qaaday magacaabista guddiga doorashooyinka Puntland maadaama sida uu sheegay ay baalmarsan tahay dastuurka Puntland oo dhigaya in madaxweyne ku-xigeenka lala tashto. arrintan ayaa waxay bilow noqon kartaa khilaaf soo kala dhexgala madaxda ugu sareysa maamulka Puntland sida Karaash iyo Dani. qaadacada Axmed Karaash ee guddiga uu magacaabay Dani waxa ay imanaysaa iyadoo markii ugu horeysay ay soo shaabacdo ay tahay inuusan madaxweynaha la tashanin ku-xigeenkiisa, waxaana jirin wax khilaaf ah oo horey loo ogaa iyadoo wada shaqayn fiican ay ka dhaxaysay muddadii madaxtooyada Puntland ay wala joogeen Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Karaash. Cabdishakuur Maxamed Cali, Xaal Adduun TV, Boorama.